بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كلنتي ونحسن ملك جوجتان الكان وعالي ميديا 24 برامج كان waxaan uga hadli doonaa xaaladda dalka Yemen dhibaatooyinka dadka qaxootiga ee ku dhintay badda Soomaaliya iyo Yemen ka dhaxaysa isla kooxaha Xuutiyiinta weerarada ay ku hayaan Mareykanka oo dhibaato xoogan Mareykanka iyo caalamka in badan oo kamid ku noqday iyo Mareykanka oo raadinaya sidii uu ku jaari lahaa dhaqaalaha soo gala kooxda Xuutiyiinta qaramada midoobay wadahadalladii ay u waday kooxaha Yemen ku dagaalamaya ee dawladda iyo Xuutiyiinta oo Mareykanku markaan uu caqabad xoogan ku noqonayo daawadayaal barnaamijkeena ayaa kaga bogan doontaan mar kale ku soo dhawaada Caalami 24 aad nagu cusubtahay YouTube-ka Facebook page-ka follow iyo subscribe noo saar hadaad hor noola joogtaan video noo share garee like noo saar aan ku bilownay koox tahriibayaal ah oo la sheegay inay ka soo jeedeen Geeska Afrika ayaa ku dhintay xeebaha dalka Yemen ilaa 49 qofood ayaa la sheegay in dhimashadu hadda ay marayso 140 kaleetana lagu laayay meel ay jaani cirib dhigeen taas oo biyaha badda marka ay ku dhaceen doonta inay saarnaayeen dad ugu dambeysay doonta oo la sheegay inay ka baxday xeebaha bari ee dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Boosaaso agagaarkeeda ayaa la sheegay inay saarnaayeen 260 qofood oo tahriibayaal ah kuna sii jeeday dalka Sacuudiga si uga sii gudbaan qaarkood dalalka kale ee Carabeed doontan ay ka baxday Soomaaliya sidoo kale tan ku sii jeeday dalka Yemen ayaa la sheegay dadka saarnaan Geeska Afrika soo jeeda in inta ugu badan ay u dhasheen dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya kuwaas oo la sheegay in danta ay u socdaan ahayd nolol ka wanaagsan midda wadamadooda ay ku haystaan inay ka raadiyaan wadamada Carabta wadooyinka u dambeeyay badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen oo dadka badan ay ku dhiman jireen waxa moodeen aad u yaray dadka ku dhimanaya maadaama xasradaha ka taagan Yemen ay aad u badnaayeen dadkuna ay cabsi badan ka muujinayaan aadida dalka Yemen hasaate xilligan waxa moodaa doomihii injir ka samaysnaa ee dadku ay ku safri jireen qasaaraha badan oo ka soo gaari jiray inay dib u bilowdeen iyadoo hadda dadkan la sheegay 49 qof ee geeriyooday 140 kale la laayahay halka inta kalena qaybo ka mid la badbaadiyay sida ay sheegtay hay'adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ee IOM loo soo gaabiyo goobka ayaa wali soconaya dadkaasi lagu badbaadinayo hasaate hay'adda qaramada midoobay waxay sheegtay in badbaadin la helay aad u yartay rajadeedu maadaama doonta oo degtay maalintii Isniinta ahayd ilaa iyo hadda aan la haynin dad badan oo badda ku maqan oo 140 qofood kor u dhaafaya dadka safarka ee ka baxa Afrika gaar ahaan bariga Afrika iyo waqooyiga Afrika ayaa la sheegay badankooda inay aadaan wadamada Sacuudiga iyo wadamada kale ee Carabta iyagoo marin ka sii dhigta wadanka Yemen halkaas oo doomaha ay uga degaan kadibna ay ka sii galaan iyagoo lugeynaya dalka Sacuudiga qaarkoodna ay u sii gudbaan dalal kale ee Carabta Yemen waxa ka taagan dhibaato xoogan oo dawladii wadankaasi waa la burburiyay badankeeduna waa dibad joog sidoo kale tan kooxaha Xuutiyiinta ayaa wadanka intiisa badan gacanta ku haya kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay qalqal geliyay safarkii ganacsiga ee badda cas Mareykanka iyo xulufadiisa ku sugan badda cas ayaa la sheegay in hadda ay raadinayaan sidii ay ku xanibi lahaayeen ilaha dhaqaale ee Xuutiyiinta ay helaan taas ugu weyn tahay shidaalka iyo kheyraad kale ee Yemen laga qaado iyo meelaha kale ee dhaqaaluhu ka soo galo arinta Mareykanku hadda ka shaqeynayo ayaa loo arkay in qatar weyn ku tahay wadahadallada kooxaha Yemeniyiinta u dhaxeeya ee qaramada midoobay ee garwadeenka ka tahay kuwaas oo lagu doonayo si nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Yemen Mareykanka ayaa la sheegay inuu xoog saaray sidii uu ku joojin lahaa wadahadallada Xuutiyiinta ay ka qayb galayaan tan iyo inta ay joojinayaan weerarada ay ku hayaan badda cas maraakiibta maraysa ee caalamiga taas bedelkeedana Mareykanku wuxuu sheegayaa haddii la joojiyo Xuutiyiinta ay joojiyaan weeraradaasi inuu ogolaan doono in wadahadalka ay ka qayb galaan haddii aysan joojina ilaha dhaqaale oo dhaqaale uu ka soo galan uu joojin doono sidoo kale tan uu ka shaqeyn doono sidii lagu abuuri lahaa xurufo weerar ballaaran ku qaada kooxaha Xuutiyiinta dalka Yemen dhibaato kasta oo Yemen ka dhacda waxay saameyn xoogan ku yeelan kartaa dalal badan oo caalamka gaar ahaan Soomaaliya Masar iyo qaybo badan oo Afrika ka mid ah iyo wadamada Carabta kuwaas oo isku socodka dhaqaalaha iyo si lamid ah ganacsiga geliya wadamadaasi uu hakad xoogan ku imaan karo qaramada midoobay dhankeeda waxay walaac xoogan ka muujinaysaa talaabada Mareykanku hadda qaadayo ee uu uga hortagayo sidii Xuutiyiintu ay ku joojin lahaayeen maraakiibta weerarada ay ku hayaan taas oo noqotay in marka dambe Mareykanku u adeegsado indilaha dhaqaale ee Xuutiyiinta iyo si lamid ah ka qaybgalka wadahadallada nabadda uu adeegsado weerarkiisa iyo dagaalka kula jira kooxaha Xuutiyiinta taas oo qatar ku ah laftigeedu deganaanta la raadinayo wadanka Yemen in lagu soo dabaalo oo muddo dheer dagaalo xoogan ay ka jiraan daawadeelintaas ayaan qodobkeen ku saafmeeray